السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلن وعن وناكسن ومدى الصوماليات ملكستو الدنيا ذاك جوكتان يسوى البعض مركا إنو مخشان waxaad ku soo dhawaataan falanqayn markaa ku saabsan wararka kala duwan ee ka soo baxaya khilaafka u dhaxeeya dawladda dhexe ee federaalka iyo sidoo kale maamul goboleedyada Jubbaland iyo sidoo kale marka la eego iyaduna Puntland saan ogsoonahay dalka Soomaaliya waxa uu soo maray maraaxilo kala duwan iyo sidoo kale wajiyo kala duwan ummadda Soomaaliyeed waxa ay la daalaa-dhacayeen xilliyadii ugu dambeysay ama markaasi ay u baahnaayeen inay helaan dawladnimo rasmi ah taa oo kaafin karta baahiyaha ka jira gudaha dalkeena Soomaaliya boqolaal dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed ayaa waxa iyagu markaa la eego xaaladooda dhanka shaqada ah ay aad hooseysa sidoo kale waxa ay ku qariqmeen ama ay ku baaba'een badaha kala duwan iyagoo markaa raadinaya nabad xasilooni ka duwan tan Soomaaliya ka jirta shacabka Soomaaliyeed sida ay u wajahayaan wararka hadda soo baxaya ama khilaafka jira waxa ay tahay mid sii hurinaysa khilaafka ka dhex taagan mas'uuliyiinta ummadda Soomaaliyeed oo iyagu markaasi leh mudnaan amaan iyo sidoo kale xushmad gaar ah waxaana faraysa diinteena islaamka ah iyo sidoo kale marka la eego dhaqanka suuban ee Soomaalidu ay leedahay waxaad moodaa in ay aad iyo aad u lumayso dhaqankii Soomaalida lagu yaqaanay ee ah in ay markaa faafiyaan isla markaana ay ku dhaqmaan dhaqamo wanaagsan oo diinteena iyo dhaqankeena suuban ee Soomaaliyeed markaa lagu yaqaan sidoo kale waxaad arkaysaa warar aanan sal iyo raad lahayn oo iyagu ay faafinayaan taageerayaasha labada dhinac ee dawladda federaalka iyo sidoo kale maamul goboleedyada kuwa taageera oo markaa kala dhantaalaya dawladnimada Soomaaliya iminka waxa ay maraysaa in farta lagu yeero isla markaana loo tilmaamo sida uu xalka yahay waxaana markaas la isdhihi karaa in qaladaadkaasi iyo sidoo kale waaqica haatan gudaha dalkeena ka taagan inay tahay mid aad iyo aad loogu walaacsan yahay mas'uuliyiinteenu waxa ay naga mudan yihiin xushmad waxaana faraysa diinteena islaamka iyo dhaqankeena suuban sidoo kale waxa soo baxaya aflagaadooyin loo geysanayo mas'uuliyiin cid kasta oo maanta Soomaaliya wax ka gashay ama dambi ka gashay waxa uu la hortagi doonaa Allah Azza wa Jalla ama Allah tabaaraka wa taala qof walba dambigiisa cid kale looma saarin doono waxa muhiim ah in shacabka Soomaaliyeed ay fahmaan tubta wanaagsan ee loo mari karo si Soomaaliya xal ay u gaarto isla markaana loo abaaro wadada saxda ah ee dadka Soomaaliyeed iyo mas'uuliyiinta Soomaaliyeed la isku keeni karo dadaalo kala duwan ay shacabku muujinayaan shacabkuna waa ay kala baxsan yihiin qaar wanaagsan ayaa jira oo markaa ka shaqeynaya danta dalka iyo tan marka la eego danta u gaarka ah qof kasta labada dhinac ee markaa taageera dawladda federaalka iyo sidoo kale maamul goboleedyada mucaaradka ah runtii waxaan isdhihi karaa waxay u abaarayaan siyaasadda sida ay u socoto haatan mid aanan wanaagsanayn sidoo kale waxaa iyaguna loo baahan yahay inay foojignaadaan shacabka Soomaaliyeed oo ay xaqiiqsadaan waxa rasmiga ah markaad aragto war la soo daabacay ha ku degdegin oo isla markii ha ka dhigan mid xaqiiq ah isla markaana aad ku abaartid ama qalbigaada u galo inuu xaqiiq yahay balse ogow warkan halka uu ka yimaaday iyo sidoo kale akoonka ama goobta la soo dhigay waxa loogu bartay cid kasta oo been loogu bartay waa inaad iska ilaalisaa warka ka soo baxa sidoo kale xaaladda Soomaaliya ka taagan iminka waa xaalad la isdhihi karo waa tii ugu xumeedee dhanka khilaafka marka la eego dhinacyo badan oo horumar ayaa jira oo markaa shacabku ay ku riyaaqeen sidoo kale tubta loo marayo in marka la eego dhanka khilaafaadkana ay tahay tub aanan wanaagsanayn in aad qof aflagaadiisa waa wax
aad iyo aad dembi u ah caalamka sidoo kale inaan mas'uul aflagaadaysaa sidoo kalena waa dhibaato kale oo waxa iyadu ay horseedaysaa in shacabka Soomaaliyeed quluubtooda ay sii fogaato oo colaadda iyo sidoo kale waxa la raadinayo ay tahay in nabad lagu noolaado oo dalka Soomaaliya uu soo saarto shidaalkiisa iyo qaraadkiisa waxay u baahan tahay hadallo runtii aad u dabacsan isla markaana Soomaalidu ay is aragto in iyagu ay mar walba xalka rasmiga ay ka gaari karaan dalkan aysan cidna u haynin waxaad arkaysaa kuwa boonbooninaya dowladaha shisheeye ee iyagu qaska mar walba u taagan ee aanan doonaynin in ay la helo dowlad markaa iyadu islaam ah isla markaana Soomaali ah in ay laga helo gobolka East Africa intaasi oo idil shacabka Soomaaliyeed waxa loo baahan yahay in dalka ay u duceeyaan isla markaana ay ahaadaan kuwa iyagu u mideysan tab toosan oo wanaagsan isla markaana la isdhihi karo waa tabta kaliya ee Soomaalidu ay ku heshiin karto wararka markaan eegno dhinaca siyaasiyiinta warar kala duwan ayaa soo baxaya lama ogaan karo waxa rasmiga ah ee dhici kara balse waxa janalkeena Wamo News ballan markaasi aan ku qaadi doonaa in aan mar walba aan nila wadaagno wararka rasmiga ah ee markaa ku saabsan dhacdooyinka ka socda gudaha dalka gaar ahaan khilaafka u dhaxeeya mas'uuliyiinta Soomaaliyeed ee iyagu marka la eego khilaafka uu ka dhex taagan yahay maanta shir ayaa dhacay shirkaasi waxa ka soo qayb galay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka mid yahay ra'iisul wasaare Roble maamul goboleedyo oo ay ka mid tahay Koonfur Galbeed iyo sidoo kale maamulka gobolka Banaadir oo Galmudug ayaa iyagu markaa goobta ku sugnaa wali waxa maqan oo la rajeynaya in shirka ay ku soo biiraan maamulada Jubbaland iyo Puntland rajada Soomaaliyeed aad iyo aad ay waxa indhaha ku hayaan waxa halkaas ka soo baxaya sidoo kale waxa jira dad iyaguna warar been abuur ah oo aan sal iraad lahayn ka faafinaya shirkaasi sidoo kale kala fogeynaya shacabka Soomaaliyeed waa in ay mar walba ahaadaan kuwa iyagu feejigan isla markaana aad iyo aad marka la eego wararka noocaas oo kala raadiya xogta rasmiga ah isla markaana waxaan idinka codsanayaa in alla aan markaa ugu barino in dalkan uu nabad noqdo san ogsoonahay dadka dhibaatada inta badan ay saamayso waa dhalinyarada oo iyagu shaqo la'aan baahsan haysato isla markaana ku rafaadsan meel walba oo Soomaalida kamid ah muhiim waxa ah in qofka saxafiga ah ee hadda jira in uu abaaro waxa rasmiga ee jira in aan la fiirin shilimaadka yaryarka ah ee mas'uuliyiinta kaaga imaanaya balse aad fiiriso danta shacabkaada maxaa yeelay qof walba waxa uu shaqeynaya shacabka iyo dalkiisa ma ahan inaad u shaqeyso shakhsi marka muhiimadda ugu weyn ee aan maanta janalkeena Wamo News aan markaa idinku soo bandhigayno waxyaabaha ama wararka aad ka loo hadalhayo ayaa intaasi ah saaxiibada qaaliga ah ummadda Soomaaliyeed idinka ayaa wax idinku nahay khaasatan anigoo ah Maxamed Ibrahim Karama waxaan ka codsanayaa inaad sii faafiso oo aad sii share gareyso muuqaalkan sidoo kale aad like saarto page-kan aan anigu leeyahay ee wariye Karama sidoo kale waxaan ka codsanayaa in janalkayga Wamo Media aad markaasi booqato oo subscribe aad soo saarto maadaama taasi ay suurtagelinayso in aan idin soo badino wararka noocan oo kala waad ku mahadsantihiin inta aad markaasi nala joogteen oo aad nala dhageysanayseen falanqaynta ku saabsan waxa ka socda gudaha dalka Soomaaliya magacaygu waa Maxamed Ibrahim Karama gudahan waxaan ku soo afmeerayaa falanqayntii koobneed ee xaaladda dalka Soomaaliya oo markaa aan ku eegaynay dhinacyo kala duwan saaxiibada qaaliga ah tani kulan dambe waxaan idinkaga tagayaa sida iyo amaana Allah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh موعد inaan ka hadlo midka ugu horeeya waxa weeyaan qorsideeda bini aadamku ilaahay baa wada abuurtay ilaahay hadduu wada abuurtayna wuxuu siiyey samac iyo basar wixii xun isku diido wixii fiicanna uu ku aqbalo wixii danihiisaana awood uu ku qabsadaa ilaahay dabeecaddaas inagu wareegsan oo si kastaba aynu arkayno
oo dabayl leh oo bad leh oo biri leh oo beer leh oo xoola leh ilaahay bini aadamka ayuu ka sara mariyey wuxuu siiyey awood uu ku bedelo uguna tasarrufo sida isagu isdoonayo had walba ciddii fahamtay awooddaas weyn oo ilaahay siiyey waxbay ku qabsadeen dhibaatooyinka dabeecadda kaga imaanhaya ama bini aadam kaga imaanhaya markaa ugu tabaabushaysteen waxay ku qabsadeen waa anfaceen qolo walba noloshoodii ayay ku hanteen qoladii karteen waxay kaga baxeen faqaaradii waxay kaga baxeen jaahilnimadii waxay ku qabsadeen danahoodii ayay ku xaqiijiyeen kuna sugeen inaan dhibaato ugu imaanin ama ay dhibaatadii ka timaadaba ay uga gaashaanteen say uga hortagaan markaan sidaa leeyahay waxa weeye ururta awooddii ilaahay ina siiye ku camalfalkeedii allah ina garansiiyo shacbiga soomaaliyeed bini aadamkaas kaleetuu ka mid yahay oo badan haddana waa markaan leeyahay dal taajirah iyo dad faqiirah isku dul nool dadku faqiir weeye run weeye laakiin dalku taajir weeye ilaahay wax walba waa dhigay bad buu dhigay beer buu dhigay xooluu ka badiyey hawo fiican buu siiyey kulligeen shaarar baynu qabna 12 bilo shaararkaasan qabayna adduunka meelo badan kama dhacdo taas dhowr nooc oo labis waa in la isku bedelaa oo dhaxanta mid la isaga celiyo oo mid qorraxda la isaga celiyo oo mid dabaysh iyo balaayo waaweyn la isaga celiyo naga aad baa ilaahay noogu roon laakiin waxaad moodaa ama asal aqoon darro haynoo geyso ama isticmaarba hayna aaminsiiyo inaynaan waxba qabsana iyaga barino hayna aaminsiiyo haddana waxaad moodaa inaynu fiqiirnimadii kula nool lahay sababihii la imaanhayeyna inaynaan dareemaynin sidaynu isaga caabii lahayn waxaad moodaa habkii ama tabtii aynu kaga bixi lahayn dhibaatada noocyada kala gedisan leh oo ama bini aadamku uu dalkeenna u geysanayo dadkeenna ama dabeecadduba haddaadan la dagaalamin way kula dagaalamaysaa awooddii alla ku siiyey aadan uga hortegin oo aadan wax ugu qabsanin inay ku hayso shacbigeenna dhibaato badan haddana waa dalkaa taajirka ah saanu sheegahayo dadkeennuse ma garan tajaaradaas ilaahay siiyey oo dadnimo oo dad fiican wey dadkeennu dad xun maaha iyo qaniimadaas ilaahay dalkooda ugu beeray nooc kastaba ha noqotay inay ka faa'iidaysan lahayiin faa'iido darradaasna ay ka imaanayso dariiqad aan habboonayn u fakerta ama ku shaqaysa weligoodna uu isticmaar lug ku leeyahay ajnabi uslug ku leeyahay intay iyagu taladooda iyo tabartooda iyo dantooda iyo dalkooda iyo naftooda iyo ilaahad inta aaminaan ay wax qabsan lahaayeen waxaad moodaa aad inay ugu janjeeraan cid kale inay wax ka sugaaneen waxaad cid tira ka sugtay ma ku dhergin karaane maya ma ku dhergin karo baryo aadan ma ku dhergi karaysaa weligaa kuma dhergaysa wax kastaba ha lagu siiyo inta ugu xoolo badan adduunka hadday waxooda kugu shubaan weligeed ku deeqi mayso waxaad adigu gacantaada ku qabsato iyo maskaxdaada iyo taladaada iyo garashadaada waxaad ku qabsato wax ku deeqi kara intaasaa jira oo uu la jiro iimaan iyo kalsooni aad naftaada iyo dalkaaga iyo diintaada aad ku qabto wax kaloo ku deeqi karaa ma jiraan soomaaliyay dantaada u jeeso iska daa indhahaad u taagayso dalal kaleeto iyo wixii ka imaanay warkacay aynu tabcanne beeraheenna aan tabcanno oo baddeenna kala soo baxna wax ku yaal oo xoolaheenna aan xanaanaysanno aan ku noolaanno wixii waxayna dheer aynu kaalmaysanno asaan cadow ku ahayn dalkeenna iyo dadkeenna arrinu intaas weeye diinta aanu gudbo nabigeennii suubanaa nabi maxamed tawrad buu sameeyey ilaah baa u dhiibay tawradda ku ahnayay tawrad buu sameeyey meel adduunka aad tagto aadan dad islaama ku arkayn yaa fidiyey waxa yaa gaartay tawraddii nabi maxamed loo soo dhiibay ilaah u soo dhiibay baa fidisay oo qof walba oo islaama taasaa saaran gacanku markuu dhashay waa shirinay waxaan hor dhegaysta waxaynu caabudnaa waa ilaahay weynaayo waaxid ah wuxuu inoo soo mariyey oo inoogu sheegay dariiqaan raacinayna kitaabkiisa kariimka ah wuxuu inoogu soo dhiibay rasuulkeennii suubanaa inuu inoogu soo dhiibay ha inoogu soo dhiibee waxaa halkaas ka soo ifbaxay ficilkii iyo qawlkii nebigu uu ka tegey ayaa ka soo ifbaxay xadiis buu noqday marka qof walba dariiqadiisa ha haysta hadduu doono laakiin midka inaga dhexeeyaa waa tiirkaas dariiqadaada wado laakiin kaas uu ilaahay guddoonshay ummaddaas aan abuurtay inta midowdaan ha kala furfurmina
taasoo ha noqoto asalkii dariiqa la raacaya kaas way ku dhaqaaqeen mahad iyo ammaanba waa u jeedinaynaa haddaan taariikhda dib u raaco culimadii la tirinayey ama tawriyiintii la tirinayay magacyadooda waxay ahayn kuwii badbaadiyey kollayba dadka Soomaaliyeed inay baaqi ku ahaadaan islaamnimadooda dawladdu markii ay go'aarto go'aan ama sharciga qaranka la dhigo fuliyayaal bay u baahan fuliyaalkii adinka weeyaan waacidinta weeyaan dariiqooyinka weeyaan madaxda masaajidka weeyaan iyagaa la rabaa inay fuliyaan iyaga iyo wasaaradooda yaa mas-uuliyadda dul saaran